وحسيتني أو طيب معاني هوي إيشان محاكو قرن أبو ومعانا الصلاة أكون سنية مايا مايا ما هي الصلاة أكون سنية مايا مايا ما هي وين سوق الصعيب بقشة أيينا صحي عني وين سوق الصعيب بقشة أيينا صحي عني ما أبصي لو ما أقول أبصي ما أبصي أكون تأمه ليس مسيح 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 ما أبصي أكون تنيا استمترا مايا مايا ما أبصي أكون تنيا توي جدا مايا مايا ما هي وين سوق الصعيد بقشة أيينا صحي عني وين سوق الصعيد بقشة أيينا صحي عني ما أبصي لو ما أقول أبصي بسم الله الرحمن الرحيم aad baan hortii kaaga mahad celinaynaa Salmaan Rooble runtii oo kamid ah odayaasha ka soo jeeda deegaanadan gobolka Saraar gobolada Saraar iyo Buuhoodle runtii maanta horeyskan aan ku yeelanayno arrimo badan oo kale kaga hadli doono insha Allah ugu horeyn waan kaaga mahad celinaa adigoo runtii magacaaga iyo maaragtay in yar warbixin naga siinaya iska deena intaan ka gudbinaa hadda waan ka jarinaa waxaan ugu soo dhaweynayaa runtii mikrofoonka ina maartay su'aalan insha Allah ka weydiin doona arrimo yar oo wareysiga ku saabsan ugu horeyn waxa baliga yar warbixisaa deegaanadan ka soo jeedid kolay degmooyin gobolada Saraar iyo Buuhoodle ayaa ka soo jeeda runtii arrimo badan ba deegaanadaasi ka jira siiba iyadoo leeyahay gobolada barigu way ka dubdhac baa jira dhinac marka Soomaaliland laga hadlayo goboladayda gobolada bariga dubdhac baa ka jira bal ka waran arrimahaas iyo deegaanada runtii ka soo jeedid بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه أضمت إذا كم هذا علينا وليس كان قابلنا إذا قادسان إن شاء الله تعالى هرتمرك هراء دبدعة قبل الله ضبري جوي شيران جودهان كارهان قبل الله نكسر شدنا عنه إن شاء الله دجان كانوا عين يبوه هذا عاد بيوسي تنبيه سببها تنبين تكين ينوحان أوران كرا ويبفربديهن waxaan ka soo qaadayaa horta deegaankaasi waa deegaankii halgankii hubeysnaaye SNA marka hore uu ka farcamay buu ahaa sidaa darteed halgankii waynu garanaynaa guulo badan baynu ka gaadhnay oo waxa weeyaan dib u xarayntii dalkan lagu qabtay waxaan oran karaa waa deegaankii ay ka bilaamatay firfircoonida ugu badan ee magaalada mujaahidiintii reer SNM-na waa meelihii ay ka farcameen maxaan yiraahdaa firfircoonida ugu badan ay ka jirtay la oran karana markii dambe dalkoo dhan bay ku dhaahday markaas taasi waa taas horta dib u dhac iyo maxay yiraahdaa dib u dhac badan bay taasi keentay oo haday miinooyin noqoto alaan kan la leeyahay waa ku jiraan waday way ku jiraan hadda miinooyinkii marka burburkii dagaalkii magaranaysa dib u xirayntu wali waa meel ay ka sii muuqato marka insha Allah taala Soomaaliland oo dhan halganku wuu ka jiray laakiin waxaan oran karaa meesha tani waa meeshii barko horta halkan ka bilaabmay ta kale waxa sabab oo ah meesha tan waa halkii ugu dambeysay baan oran karaa maxay yiraahdaa ugu dambeysay xagga magaranaysa dib u dhac sababtoo aafooyin badan baa jira oo ay abaara ka mid yihiin oo maxay yiraahdaa ay ka mid yihiin magaranaysa de aafooyin dabiici ah oo fara badan ayaa xitaa gobolada u sii gaara sababtoo ah galbeed iyo maxay yiraahdaa bari markooda hore isku cimilo maaha taasina kulli waxay keenaysaa dib u dhac waa keenaysaa hadii ilaahay ka dhigo ta kale hadii aan ka soo qaado maxaan yiraahdaa meeshan waa cirif bay ku tala deegaankani waa deegaan cirif ku yaala xagna xuduud buu kala leeyahay Itoobiya xagna Soomaaliya xuduud kala leeyahay xagna Soomaaliland xuduud kala leeyahay marka gobolka kani waxaan oran karaa waa gobolka ugu muhiimsan gobolka Buuhoodle iyo Cayn waxaan oran karaa waa gobolada ugu muhiimsan Soomaaliland laakiin wax qabasho la'aan aan dawladihii wadanka soo maray aanay aad waxba uga qabanin iyo dadka
u dhashay deegaanka oo iyaguna aan wax qabsanin labadaas horta aad markay labadaasina dee waa laba ciladood oo waaweyn mar haddii meeshii gacan dabadeedna aanay wax ka qabanaynin gacantii u dhalatayna aanay wax ka qabanaynin halkaa waxaa ka imanaya dee aafaa ka iman karta dib u dhac weyna markaa saasay goboladaasi u diba dhacsan yihiin waa hagaag kolley waxyaabaha aad ka dhawaajisay ee ah in maaragtay aanay gacantii dawladdu ka maqan tahay tii qurbuhu ka maqan tahay maxaa iminka aad isleedahay deegaanka waa lagu horumari kari lahaa deegaanada ka soo jeedid aad isleedahay iminka maaragtay bointigaasaa laga wareegi karaa oo deegaanka lagu horumari karaa dhinaca waxa jira oo kale qabyaaladu guud ahaanba geyga soomaalida aad bay ugu badan tahay iminka deegaanadaasna waxaan oran karaa way kasii xag jiraanoo waa kusii badan tahay marka bal arrimahaas insha allahu tacaala horta marka hore haddii ilaahay ka dhigo horta waxqabad dawladeed dee lagama marhna oo waxqabad dawladeed wuu jirayaa laakiin waxaad moodaa xagga bariga iyo xagga galbeedku inaanay marka hore isku awoodahayn isku wax looga wada qaban haddii aan ka soo qaado aafooyinka deegaanada tan aafeeyey waxaa ka mid ah haddii ilahay rabo halka qaadkaa ka mid ah oo waxa weeye dadka cidhiidhi bay ku nool yihiin waana meel cidhifa waana colaad waana abaar macnaa maxaa keenaysa markaa dadkii waxay la qabsadeen wax qaad la yidhaahdo aafada ugu weyn ee aan odhan karo deegaamadan way haysataa waxa weeye waa bahalka qaadka la yidhaahdo oo aan odhan karo dee anigu magaca qaad haddii la yidhahdo dadkaa ku fahmaya laakiin waxaa la odhan karaa waa balaaya la odhan karaa waa balaayo laba jibaaran ayaa la odhan karaa oo ku habsatay maxaa yidhahdaaye dadka ku habsatay ayaa la odhan karaa marka insha allahu tacaala taa waxaa soo raca aafo kale oo la yidhahdo waa qabyaalad oo maxaan idhahdaaye qabyaalad inkastoo soomaalida dhammaanteed ay magaranaysaa saamaysay haddana waxaa la odhan karaa meeshu marka ay xuduud tahay ee xag tahay ee ay saddex geesoo tahay waxa weeye iyaduna way kasii xag jiraysaa ayaad odhan kartaa oo ay magaranaysaa dadku waxyaabo ciladaasi waa cilad dadka aad iyo aad ugu baahday ayaan odhan karaa insha allahu tacaala xagga waxqabadka iyadoo tacab la-aani jirto haddanana kolley waxa wadeen deegaanka wuxuu waday waddo waday iskaa wax u qabso uu ku dhisayo walow aanay weli xukuumaddii aanay ku soo biirin la qabashadaasi bal ka warran waddadaas see aad doonaysaa nin iska daa inaga saynin geli عادي سوكو بس على markii jawaas maarta hadalka sookob waa hagaag Salmaan Rooblow aad ba horto ma hasan tahay iyadoo maarta ay jirto dubudhac badani haddana imika waxa wadaan ama deegaanku wada wado isku xidhsan runtii aan oran karo dawlado marka Soomaaliland Itoobiya ama Soomaaliya wadadaas iska wax u qabsaa deegaanku ku wada walow aan weli xukuumadii soo gelin bal ka warran iyadoo wadada noo yar sharx sida ay wadadu insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantahay horta marka hore wadadaasi way jirtaa waanu humaajinay deegaan ahaan qurba joog iyo qolqol joogna markii sharar badan la qaatay markii la eegay inay wadada tani muhiim tahay markii magaranaysaa baahi weyn in loo qabo la arkay markii maxaan ilaahdayay ka deegaan ahaan cid waliba ay soo dhaweysay waa tii sharar badan la qabtay dadkuna ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen dhaqaalo dee aan odhan karo waa dhaqaalo wanaagsan oo haddeer buuran oo socdo welina wuu socdaa guddi baan u saarnay board baa loo sameeyey odayaal baa loo sameeyey iyo waxgarad iyo madax egas wasiiro ku jiraan waxgarad ku jiro ganacsato ku jirto rag tijaari ku jiraan ayaa loo xulay oo arrinkaa loo igmaday oo loo xil saaray wayna socotaa haddeerto insha allahu meel wacanna way maraysaa haddii ilaahay ka dhigana way ka go-an tahay deegaanka waddadaa wadaamago ilaa buuhooda isku xidhaa inay samaysanto deegaanka way ka go-an tahay ilaahayna waa lala kaashanayaa haddeertana waxa weeyaan lacagtii qaybteedii hore waa la diray oo Dubai baa lagu shubay waxa weeyaan 3 cagaf iyo maxay dhahdaaye adigu qalabka wixii uu haddeerto ugu horeeya oo 3 cagaf iyo maxay dhahdaaye dhowr iska rogo iyo adigu dhowr booyadood wixii hadba laga helo hadba dhaqaalo sidii noqdo ayaa yoolku yahay marka insha Allah qalabkana waxa ugu horeeya cagafyada ayaa ugu horeeya oo maxay dhahdaaye qalab la'aan wada lama samayn karo wadada
waddadaasi way noo qoondoonsan tahay deegaanka oo dhan baana ka shiray waana la isla gartay waddadaasina way samaysmaysaa waxaana odhan karaa waddadaasi waa waddo halbowle ah oo waddooyinka haddeerto somalilan ka jira aan odhan karo waxay ahaanaysaa waddada ugu lambarkowsan ayay ahaanaysaa sababtoo ah waddada ceerigaabo waa dheertay way ka dheertay waddadan waa waddo kooban laakiin xagga istiraajiga marka la eego dee waa waddada isku xidhaysa 3 waddan oo maxay Ethiopia Somaliland iyo Soomaaliya waxa weeyaan waynu ognahay Soomaaliya amika Soomaalida ee koonfurtu meesha ay ka dhowdahay waxa weeye waa buuhoodle weeyaan buuhoodle marka waddada la geeyo beeladweyna ku xiga waxba isuma jirto wax yar masaafo yar baa la soconaya marka waddadaasi waxaan oran karaa waa waddo noqon doonta dekad oo kale waxaan oran karaa waa waddo noqon doonta airport oo kale waxaan oran karaa waxay noqon doontaa custom weyn oo caalamiya ayay noqon doontaa haddii deegaankan reer buuhoodle iyo deegaankan deegaanadan anagu aanu ka soo jeedno ay isfahmaan waxay noqon doontaa baan oran karaa waddo aad iyo aad u caalamiya hadhowna magaranaysaa dhaxli karta in waddo tareenba la mariyo sababtoo ah adduunku wuxuu aad u daneeyaa meesha istiraajiga ah ama dekada ah ama xadadka kala badha waa meelaha adduunka ugu qaalisan weeyaan marka waxa weeye waddadan wadaamago ka baxda ee buuhood la tagtaa waa waddo aan oran karo Soomaaliland waddada ugu qaalisan weeye sababtoo ah waddo 3 waddan kulmisa oo 3 dal kulminaysa wadada mooyaane ma jirto hadii bari laqdo waa 2 wadan oo waa Soomaaliya Somaliland hadii xagga Djibouti leegana waa 2 wadan waa Soomaaliya waxa weeye Djibouti iyo Somaliland laakiin wadada tani waa Soomaaliya Ethiopia iyo Somaliland marka wadada hadii Ilaahay ka dhigo waa loo balansan yahay dhaqaalaheeda intii u badneyd waa la bixiyay inta kalena waa la bixinaya wadadaasina way sameeysan insha Allah ta'ala aad ma xasantahay kulli muuqaalka markaynu horeen isleeyahay sida waxyaabaha su'aashaad weydiisay haddii aan ka jawaabo oo ah golaha muxsiniintu muxuu taagay yahay muxuu soo qabtay golahan horta marka hore waa golo midnimo weeyaan oo midnimo u taagan yahay deegaanada buuhoodle iyo cayn maxay dhahday hawd bari iyo cayn ayuu de golahani u adeegaa golahana waxa la yiraahdaa golaha muxsiniinta waa gole tayo leh waxuu soo qabtayna ay jiraan waxyaabo badan soo qabtay waxyaabo badan ay u qoondaysan yihiin waxa uu soo qabtay waxa kamid ah abaarihii uu ka qayb qaatay maxay dhahday rabadaantiina maxay dhahday qoysas dhowr iyo 3 qoys ah ayaa laga caawiyay hadii Ilaahay ka dhigo hadeerto xanaanooyinka deegaanka kan oo dayacan magaalooyinka qaarna aanay xanaanaba lahayn ayaa hadeertana loo soo wada sariiro iyo qalab agabkii oo isku dhamaystiran hadii alabkii xafiiska noqon lahayd haday noqon lahayd sariirihii haday noqon lahayd fishaantii haday maxay raahday noqon lahayd maxay lahayd adeegyadii aasiga ah ayaa loo container baan soo wadnaa hadii Ilaahay ka dhigo sariir ah oo uu golahan muxsiniinta kalcas ka qayb qaatay oo maxay raahday lacagtiisii intii badnayd aanu hayno wax yar dhimanna ay magaranaysaa maalmaha soo socda ay soo buuxsami doonaan marka golahan muxsiniinta kalcas waxaan ugu magac darnay kalcas maan ugu magac darnay marka kalcas de waxay ahayd halgankii leeyahay laakiin hadeerna waxa weeye wax qabadka deegaanka aan ka soo jeedno ayuu magaranaysaa golahani wax weyn ka taraya hadeerto oo de waxna uu soo qabtay waxna way qoondaysan yihiin insha Allah ta'ala marka magaalooyinka wadaamago xanaanay leedahay qurulugna xanaanay leedahay laakiin magaalooyinka badankoodu xanaanooyin dhisan ma laha marka haday kirir noqoto haday ulasan noqoto haday muraayada noqoto haday qabri hulu noqoto haday carab balanbal noqoto haday magaranaysaa coodan noqoto intaana waxa lagu tala jiraa in magaranaysaa xanaanooyin laga sameeyo taasoo cidii kasta ee danaynaysa ee khayrka ka qayb qaadanaysa ee lagu soo dhaweynayo ugu dambeyntii Salman Roblow kulay gunaanadkii ku jirnaa wareysigeenan xagga amniga gobolka iminka buuhoodlo kale waa deegaan runtii muddo dheer oo ku dhawaad 10 sano ay xalaad ka soo jirtay dadka deegaanada wada deega ah iminka laakiin iyaga waran bal warbixin iga yeersay arrimaha bismillaah wa salaatu wa salaam alayhi horta marka hore amnigu aad buu fiican yahay waligiina wuu fiicnaa maxay dhahday laakiin waxaad garan kartaa meel xada
oo Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Somaliland xad la leh in ay magaranaysaa ay yeelan karto qodax ama wax qardafooyin inaanay waayi karin laakiin gobolkan Buuhoodle maxay dhahay labada reer ee walaalay degan yihiin weligoodba soo jireen bay nabadgelyadooduna way wacnayd hase yeeshee xoogay qardafooyin waa la oran karaa way ka soo baxeen laakiin hadda waa laga soo gudbay dadkii waxbay kala garteen aqoon bay yeesheen hadeer waa taa wadada loo sameeynayo dadkii maxay way ilbixeen hadeerto wixii ma garanaysaa qabyaaladii iyo maxay wixii deekootada ahay dadka ku xidhnaa hadeer dadku way ka soo bugsanayaan tartiib ayay u soo ladnaanaysaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan Buuhoodle iyo Qorulugud aan marna Buuhoodle ka shirno marna Qorulugud laga shiro ayaan ilaahay idinkii rajaynaynaa hadeerna aad iyo aad bay nabadgelyadaas u wacantay waa hagaageen dhinaca maartay wadada Buuhoodle iyaga waran labadan deegaanka xagga wadada si looga wada socdaa insha Allah taala wad mahadsan tahay horta marka hore waxaan waa wadadu waa wax qaaliya qof kasta wuu garan karaa baahida ay wadadu leedahay horta marka hore shay dadka lala baryaya maaha waa shay loo baahan yahay oo ummadii anfacaya oo dawladii anfacaya oo dariskii anfacaya oo dalkii kale ina dariska anfacaya oo dalka kale xagga inaga soo xigayna walaalaanahay ee Soomaaliya anfacaya horta marka hore shaygu waa wado waana shay anfacaya dadka shay dee la isku baryayo maaha marka insha Allah taala walaalaha iyaga reer Buuhoodlana marka la geeyo wadadan la geeyo Qorulugud hadeerna hindisaha way og yihiin way la socdaan iyaga dintooda ku jirtaa annaga dintayda ku jirtaa dawladaha kale ee shisheeye shaarka ay dintooda ku jirtaa dawladda Soomaaliland bay dintooda ku jirtaa deegaan ahaan bay dintu ku jirtaa marka wadadii waa wax loo wada baahan yahay hase yeeshee ka qayb qaadashada waa laga wada qayb qaadanayaa oo reer Buuhoodle insha Allah waxaan rajaynaynaa wax garadkooda iyo siyaasiyiintooda iyo maxay dhahdaaye cuqaashoodu inay ka hadli doonaan oo insha Allah laakiin wadadu hadeer waa wada hadeer xaggan laga kaxaynayo marka insha Allah taala waa wanaageeda iyo waxtarkeeda mid ma garanaysaay hadeer aan la garanayn ma waa mid la isla fahmayo waana mid la garanayo wayna suurta gelaysaa wadadaasi hadii Ilaahay ka dhigo waa hagaag ugu dambeyntii bal xukuumadda maxaad ugu baaqaysaa haday tahay dhinaca maartay horumarka deegaanadan ay wadaan dadka maartay bulshada deegaanka soo jeeda iska wax u qabsada ku wadaan xukuumadda maxaad ugu baaqin insha Allah taala xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu waa xukuumadayadii aanu dooranay deegaankaasina waxaan oran karaa hadeerto aynu ka hadlaynaa waa deegaanka koowaad ee ma garanaysaa laf dhabarta oo ah xukuumadda ilaa iyo halgankii ayaan oran karaa waxa weeyaan hal qof oo mucaarada waxa weeye waa deegaanka aan laga soo saarin baan oran karaa marka xukuumadduna way la socotaa way og tahay deegaankuna dee xukuumadda u sheegi maynee xukuumaddaba u ahayd weeyaan way og yihiin way la socdaan waxtarkooda iyo ma garanaysaana waa sugaynaa maxay dhahay halka ay qaybtii ay kala haayeenna waanu si anagu dawladda dhaliili mayno waa dawladdeedii weeyaan laakiin waxyaabaha ma garanaysaa dee aan ishu hadeer qabanin ama waxyaabaha dayacii hore loo soo gudbay inay hadeer dawladdu dib u eegto ayaa dee xaq loogu leeyahay oo dawladdu waa dawladdii dalka xukumaysa weeyaan dawladdana dee deegaankani tacab badan buu dee dawladda u sheeganayaa ilaa iyo halgankii markaasaa darteed kolley dayici maayaan inta karaankooda laakiin waxaynu ognahay inaynu Somaliland ahaan ama dawladka ahaan dee cadow badan aynu leenahay oo cadowgeenu aad iyo aad u badan yahay oo cadowga adduunka inoogu cadowsani uu yahay ka cidifka inagu haya inaga ee Soomaaliya ah oo aan ogolayn inaynu wax qabsano marka anigu waxaan oran karaa iminka dagaalkii yaraa baynu ka soo baxnay dagaalkii yaraa ayaynu hadeer ka soo baxnay waxaynu galeynaa hadeerto reer Somaliland ba dhamaanba dagaalkii weynaa baynu galeynaa rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hadii Ilaahay ka dhigo rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri iyagoo harbi ka soo baxay oo dagaal asxaabtu ka soo baxday ayuu wuxuu ku yiri dagaalkii yaraa baynu ka soo baxnay oo dagaalkii weynaa ayaynu galeynaa dabeetana asxaabtu waxay rasuulkii Ilaahay dagaalkeenu maanta galay dagaal ka weyn ma jirin sidee baynu dagaalku ma dagaal yar buu dagaal weyn buu hayay wuxuu dagaalkaasi kii yaraa buu ahaa kii weynaa hadaynu galeynaa waa kii nafteena weeyaan Soomaaliland reer Soomaaliland ummadda ku nool oo dhan waxaan gaarsiinayaa inaynu dagaalkii hore ee aynu dalkan ku xoreynay uu ahaa dagaalkii yaraa dagaalkii weynaa maanta laynu ka baahan yahay oo maxaa laynu ka baahan yahay waxa weeye qof kasta inuu ictiraaf u heli lahayn uu tacab ictiraaf u keeni lahaa ayaa la doonaya dawladda quri ma ka fayn karto wasiirada
quri kuma filla madaxweynaha quri kuma filla guurtidoo quri kuma filla waxa la doonayaa shacab weynuhu inay ictiraafkii raadiyaan oo sidee bay u raadinayaan wadooyinka lagu raadinayaa aad iyo aad bay u batay qurba joog iyo qolqol joog waxa weeye hadday dhaqaale noqoto iyo hadday aftaamo noqoto iyo hadday magaranaysaayay noqoto dee dhinac kasta oo halgan sababtoo ah waxan waa halgan weeyaan ictiraafku waa halgan wax la iska kaasiinayo maaha ictiraaf ciyaar laguma helo waxa lagu heli karaa waxa weeyaan awood aad u badan oo aad la timaado adoo isku filaada adoo nabadgelyadaada magaranaysaa hanta adigoo maxaan idhaahdaay dimuqraadiyadda si fiican u qaata adigoo maxaan idhaahdaay musuqmaasuq iyo istabaka wareega dhexdeena yaala laga baxo iyo mucaaridista iyo jabhad samaynta waxyaabahaasoo dhan marka aynu dhaafno ee aad noqoto wado il iyo diirkeed markay reer Soomaaliland noqdaan waxa weeye adduunka dhan ugu soo jeesanaya dibadna wala ictiraafaya waa gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya insha Allah aad baad mahadsantahay Salmaan Rooblow runtii waraysiga maartay warbixinta aad ku dheeraad nagala qaadatay ama nala wadaagtay waa kaga mahadcelinaa kale waqtigii maartay aad noo hortay inta inaan waraysiga ayna siiso intaasaan ku soo afmeynaa barnaamijka